wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Abshir Aw Yuusuf Ciise oo howlo shaqo u jooga gobolka Sanaag ayaa waxa maanta uu booqday iskuulaadka Al Furqaan, Al Nuur iyo Sinaa ee magaalada Baran. wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa hadallo ku dhiirigelinaya ardayda waxa uu ka jeediyay fagaarayaasha kala duwan ee iskuulaadka uu maanta booqday. waxaana wasiirku kula dardaarmay ardayda inay sare u qaadaan dadaalkooda waxbarasho maadaama ardayda gobolada dalku ay tartan ku jiraan dhanka waxbarashada ah. sidoo kale mudane Abshir Aw Yuusuf Ciise ayaa waxa uu kulamo la qaatay dhammaan maamulayaasha iskuulaadka kala duwan ee uu maanta tegay. waxaana maamulayaasha iskuulaadka iyo wasiirku ay ka wada hadleen sidii waxbarashada sare loogu qaadi lahaa iyo habka ugu fudud ee wasaaradda waxbarashadu ay u dabooli karto baahiyaha ku gadaaban iskuulaadka. sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa waxa uu booqday jaamacadda Maakhir halkaas oo kulamo kula qaatay maamulka jaamacadda iyo ardayda wax ka barata jaamacadda Maakhir. waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo maamulka jaamacadda Maakhir ay ka wada hadleen sidii jaamacadda horumar muuqda loo gaarsiin lahaa maadaama jaamacaddu ay ka mid tahay meelaha soo saaraya hogaamiyaasha mustaqbalka ee dalka hogaamin lahaa. sidoo kale mudane Abshir Aw Yuusuf Ciise wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa uu booqday dhismaha jaamacadda Maakhir kaas oo 50% ay dhamaatay lana rajaynayo in 3 bilood kadib la soo gabagabeeyo. dhismahaas oo ay ku baxayso $4 milyan oo dollarka Mareykanka ayna ku deeqday dowladda waddanka Kuwait. waxaana wasiirku kulan la qaatay injineer Magdi oo ah injineerka u qaabilsan shirkadda dhisaysa jaamacadda Maakhir ee CEC. waxaana wasiirka iyo injineer Magdi ay islaafsadeen xog ku aadan dhismaha jaamacadda Maakhir. sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa uu booqday cisbitaalka guud ee magaalada Baran waxaana uu kulamo la qaatay maamulka cisbitaalka iyagoona ka wada hadlay sidii loo tayaysiin lahaa cisbitaalka. ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada oo booqashadan maanta ay ku weeliyeen gudoomiyaha gobolka Sanaag, gudoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah laamaha dawladda ayaa waxay booqdeen xabsiga weyn ee magaalada Baran halkaas oo wasiirka wasaaradda waxbarashadu uu kula hadlay bahda warka fidisa. dhammaan waxaanu soo maray iskuulada kala duwan hoose dhexe sare ilaa jaamacadda soo maray. waxaanu kala soo maray isbitaalka weyn ee magaalada Baran baanu soo maray. waxaanu kala soo maray dhul badan baanu soo maray oo kale. waxaanu hadda ugu soo dhamaysiinay socdaalka yagii halkan aan taaganahay waxa waa jeelkii Baran weeye. jeelka Baran mujtamaca ayaa dhisay inta hadda ina ka muuqata 4 qol baa halka ka muuqda oo hadda 4 qol oo aan dhamaystirayn oo qabyo ah. xasan cismaan aadan xasan dhagayre TV ga iyo idaacadda dowladda Puntland Baran.